Somaliland koob iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxa kor u sii kacay oo isa soo tiriyay tirada dhalinyarta ka baxaysay dalka ay u socdaalay qaaradaha kale gaar ahaan Yurub oo ah halka ugu badan yihiin iyagoo siyaabo kala duwan halkaas ku taga sida loo ogyahay ujeedada ugu weyn ee ka dambaysa hayaanka dheer ay ku hiigsanayaan halkaasi ayaa ah inay rumaysan yihiin helitaanka nolol dhaqaale ahaan ka sareysa tan dalkooda inta ay ku jiraan socdaalka dheer ay ku doonayaan inay ku gaadhaan dhulkaasi ayay soo wajahdaa xaalado adag oo halis ku ah noloshooda kuwa ayaa nafahooda waaya iyagoo oon ka gungaadhin sababtay u socdeen qaarkooda badbaadana waxay ku tagaan nolol iyo geeri iyagoo u dhaxeeya ama la kulmay dhibaatooyin mahadho iyo xusuus adag kaga taga waxa jirta oo kale dhalinyar aan haatanba ku qanacsanayn nolosha ay dalkooda ku haystaan kuwaas oo u hanqaltaagay sidii ay ku tagi lahaayeen qurbaha iyagoo oo sawiranaya humaagan xaqiiqo ku fadhiyeen iyo dhalanteed oo ah inay helayaan nolol ka qurux badan tan dalkooda haddaba dhalinyartaasi intooda badbaada ee taga halkii ay rafaadka iyo wacyiga adag u soo mareen ma helaan noloshii ay filanayeen inta ay ku jiraan socdaalka rafaadka badan waa sidee nolosha ay ku nool yihiin iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xidhiidha arrinta tahriibka waxay nooga waramayeen Nuuruddin Cabdillaahi Khaliif iyo Cismaan Maxamed Cismaan oo dalka ka baxay iyagoo tahriib ku galay qaaradda Yurub hase ahaatee iskood uga soo laabtay iyadoon cidina soo tarxilin ama aanay soo mustaafurin waxaanay haatan ka shaqaystaan magaalada Hargeysa waxa ku hormari doona sheekada Nuuruddin Cabdillaahi Khaliif kaasi oo ka bilaabaya waqtigii uu dalka ka baxay iyo bilowgii socdaalkiisa Bismillahir Rahmaanir Rahiim magaaladan Hargeysa caasimada Jamhuuriyadda Somaliland waqtigii aan qorsheynayay ee ama ay igu dhalatay qorshaha in aan wadanka ka haajiro oo aan tahriibo waxay igu dhalatay 2014 horaantiisii sababaha aan uga baxay Jamhuuriyaddeena Somaliland siibada caasimada aan deganahay Hargeysa iyadoo aan balaayay ahayn waxaan uga baxay dhaqaalo kordhisasho aan u doonanayo qurbaha sida wadamada Yurub socdaalkayga waxaan ka bilaabay magaaladan Hargeysa aniga oo ka raacay baabuur ugana sii gudbay xadka Itoobiya ilaa Addis Ababa ka bacdi halkaasaan xadka Suudaan uga gudbay intii aan Itoobiya ku jiray noloshaydu iska caadi bay ahayd laakiin tahriibta saxda ahi waxay noo bilaabantay markii aanu xadka matama ee Suudaan aanu ka gudubnay oo silicii iyo saxariirtii iyo gaajadii iyo lugtii ay noo bilaabantay oo aanu aragnayba in aanu tahriibayno intii kale waxaanu iskaga jirnay safar caadi ah ka bacdi Suudaan waxay noo noqotay in aanan gaadhi arag ee aanu lug ku jirno ilaa aanu gaadhayno Khartoum oo markii dambe gaadhina lagu geeyay oo noloshayada iyo dhiigayguba uu noo buuxo oo weli noloshii Hargeysa ay naga sii muuqato sidii baanu Khartoum ku gaadhnay ka bacdi saxaraha ayaa xajiyadana lagu geeyay gaadhi weyn baa nala saaray oo nooca hiinowga ah annagoo ah 70 qof oo rag iyo dumar ba isugu jira sidii baanu maalin duhur ah oo 12 barkii duhurnimo aanu ku galnay saxaraha gaadhigii u socodkii ku bilaabay oo ilaa habeennimadii ku jirnay oonay weli diifin aad nooga muuqan oo aanan damqan balse damqashadii ay noo bilaabantay markii aanu saxaraha ku jirnay 3 habeen ee qabowgii iyo hurdo la'aantii aanu dareennay ka bacdi ilaahay wuxuu naga ilaaliyay wax dhibaato noo keena oo xanuun ah oo dhibaato ah balse markii aanu saxaraha kala bartankiisa xadka Suudaan iyo Liibiya u gaadhiga weynina geeyay ayaa waxana lagu wareejiyay baabuurtii yaraaye Liibiyaanku watay nimanka Liibiyaanka ayaanu nolol aad iyo aad u xun kala kulanay iyagoo na garaacay iyagoo arxan darro noola dhaqmay iyagoo welibana noo diiday in aanu qaadano raashinkii jawaanada noogu jiray ee baabuurka weyn noo saarnaa yiri 2 jawaan oo kaliya waxyaabaha ay nagu sameeyeen waxa kamid ahaa
horta ninka liibiyaanka ee gaadhiga wataa nin daroogaysan weeye qofka bini aadanka ah kaadidana qabata noomay ogolayn kaadiba ay haysa gaadhiga ma taaban kartid ninka gaadhiga wataa marka ay kaadiyay qabato umbad jaanis u heli kartaa in aad adna kaadi u dhaadhacdo sida aanu gaadhiga u rasaysannahay sida raashinka ah hadal iyo buuq haddaanu ku darsanno in uu leewarka birta ah soo qaato uu nala dhaco oon anuu dee life u arkayay oon toos u arkayay nin aanu saaxiib ahayn oo koonfur isagu ka yimid oo nala socday in uu halkaa gacanta kaga dhuftay oo halkaa lafta ka soo booday markaanu kii aragnay inaanu afkayga wada haysanay gaadhi aan la joojinayn saxarihii oo aan dhammaanayn kaadidii oo nagu dhigtay oo aakhirkii noo noqotay in aanu nin kastaaba halka uu fadhiyo ku sii daayo iyo habeenkii marka ay gaadho saqda dhexe uu meel buura dhexdood na fadhiisiyo uu yidhaahdo halkaa ha ka dhaqaaqina aroortaan idiin imanayaa uu isna qaryooyin iyo tuulooyin noo dhowaa uu iska tago busto ma haysano wax la goglado ma haysano meeshu waa saxare wixii abeesa iyo waxaa dhulka aqoon uma lihin waxa saxaraan ku nool aqoon uma lihin waxaa jira ciidamo dadka tahriibaya qafaasha kuwii iskama ilaalin karno kama yaaci karno jahadii baa naga lunsan annaga isku wehela oo isku duuban marka aanu marxaladdaa ku sugannahay ayaa aroornimada ay noo yimaadaan annagoo barafkii oo habeenkii oo dhan u adkaysanaynay oo halkii kiiloomitir ee aanu yurub u dhaqaaqnaba barafka yurub yaallaa uu qabow nagu soo daynaya oo dhiiggaygii iyo dheecaankaygii marba marka ka dambaysa aanu cunayno markay arrimahayagu ay sidaa yihiin ayaanu u gudubnay aroornimadii gaadhigii baa nala saaray aduu dhowr cisho ka bacdi waxaanu galnay magaalada ajdaabiya laydhaa ajdaabiya goor maqrib ah ayaanu galnay labadii gaadhi siday isku daba socdeen geydhkii baa loo furay nimankii magafayaasha ahaa ee joogay xabaday kor u rideen waayo lacag baa soo hoyatay markii saag baabuurtiina looga soo dhaadhiciyey ee aanu soo fadhiisannay annagoo kuyuusaa iskugu daba jirna ayaa layn sidaa naloo fadhiisiiyey waa nala tirsaday xisaabtayda oo nala tirsaday guri baa nala geeyey gurigii oo soomaali hore ku sii jirto ayaana la yidhi halkan buuq looma ogola wax xero ciidan halkan aanu ku jirnay oo militariya waxaana lagu yidhi kaadi haddii ay noqoto baaldiga halkaa yaalla jirkaan weyn oo kuwa waaweyn oo afka laga gooyey ayaad ku kaajasaan xormooyinka dumarka oo keliyumad suuliga qaban kara dumar wayna la socdeen annagaa wehel oo ahayn cid kaloo ay weheshanayeen ilaahay inta ka sokaysaa may jirin magafe gurigiisa afkiisa hore waxaa ku qoran alfuluus xayaatak lacagtu oo noloshaada lacagta magafaha waa 4,700 magafe nin dadka ka duwan ma aha waa nin ka tirsan shirkadda tani hargeysaada iska dhaqaajiyey waa shirkadda ka bilaabanta Addis Ababa ilaa Suudaan ilaa Saxaraha ilaa Liibiya ilaa kugu sii xidhaysa Tripoli ee haddana ku sii gudbinaysa kii doonta santarkooduna uu yahay Suudaan oo lacagta lagu kala qaato ee ninka Soomaaligii uu ku shubaya Suudaan waa xubin ka mid ah magafayaashaas kan Itoobiya ka diray laftiis waa magafe waxa weeyaan haddii lacagtaada hore lagugu soo qadimo boorka guriga ku qoran wad la shaqaysay ee ahaa alfuluus xayaatak waxa lagu geynayaa qol yar oo ah qolka raaxadu waa bila albaab dhaqdhaqaaq kaliya waxa lagu ogol yahay halkii kan suuliga
jiritaanku ku yaalay halkan adaa cagahaaga ku tagay suuliga intaas ayaa qolka raaxada loogu bixiyay waxa weeyaan 20 qof ayaa qolka lagu ururinayaa marka 20 gaaraan waa la dirayaa waxa la geynayaa guri kale oo laga sii kontrabaaninayo annagu markii gurigii kale aanu lacagtii bixinay welibana isla intii safarkii aanu ku wada soconay inan ka mid ah hablihii safarka magafuhu oo la baxay waqtiga oo la baxay anigu waan daalanaa waan seexday anoo hurday ayaan kaadi u soo kacay dumarkii oo dhexda aanu u banaynay oo wada fadhiya ayaan ku oray maxaa idinku dhacay hebla ayaa la baxay magafihii watay وانسجمي واي إلا أنتوا واجو كبري أود ما هينو أنو كدفاعنو طريقن كيجا إيانا حدين تهيدو وحبا ما قبان كرتو ودن شيشة أيانو تشوقنا ودن على عديسان أيانو تشوقنا قريقا أنو كتشرنو وحي دانكا كحيقا حبضا إياما دافيع باكا دعايسا ما بحي كرنو ما بحسن كرنو سكدا دمر وحليا لا إتهايدا أن دفاعي كرن تطبع الشيء أذوق إن تحسن أجا مغنيت كبعدي لهي ونوسع عليه العجيه بنوسدي كبحناي كوتربان كلا أيانو قلنا إن جاري نلا سارو أو لو غير أنو كقولنا جاري كلا برد تاير باكوران مليار بلغ الدلولي الله حنسال الله أقول سي تحسن كدوسينا أنت هراء بنان عاجد يروبي على ما أقوله قف على ما أقوله هندسة على ما أقوله markaan wada dhameystiranay tayd ba halkii lagu soo buuxiyay waxa weeyaan ninkii samboorka lahaatay tayd uu ka qufacaya oo ka hindisaya laba nin oo qoriya sita ayaa gudaha noogu jiray ma nuuxsan kartid waxaanu maraynaa oo sii maraynaa magaalada colaado ka bilaabantay Banqaasi kootarabaan baanna gaariga waraaqa loo sameeyay inuu ku cashuuran yahay inuu tayd sido annaguna rarka u sidaan ka midnahay afar cishaanu saarnay afarta cishaanu saarnay ba fadhigan ku kaajeynay oo cunka iyo jeermiska iyo annagoon Hargeysa markaan ka baxnay ilaa intaan halka marno aan maydhan oo cimilo ka duwan cimiladii wadankayaga horta run ahaantii dadka ilaahay abuurtay jeebkoodu isku mid ma aha ninna uu hayaan ninna ma hayo waxay noqotay intaydii haysay ilaahay uu nabadgeliyay ninkii aan hayn dhafoorkuna waa ingegay haadkuna waa dul taagan yahay ninkana saddexda waqti sacab makaroona ah ayaa kaaga qoran iyo ku shaqaysasho haddii aad lacagtaada isku furatana ninka dhaqaaqaad aan u dhaqaaqin Yurub haddana waduun u sii socda magafihii baa laga bixiyo uu sii daayay magafu halkuu u sii daayay colaad kale iyo bad ayaa loo sii daayay anagu kuma naan xisaabtamayn run ahaantii marka laga hadlo magafihii baanu bixino de qurba joog baan noqonay qurba joog ayaa nagu ilhaam iyo nagu seef garaysneed waxay weeyaan waxaan xanuunkan iyo injirtan Liibiya nagu cunaysa iyo bustalaantan iyo gaajadan iyo waxaan inoo damqayaan qurba joog baanu nahay oo mar walba laabteeda waxa ku seef garaysan iga dambeeyo adkayso anagu waan ku gudubnay waxa kale oo timid in xeradii aanu ku jirnay nalagu laayo oo ah xero military ay ciidan nagu laayaan bad ku dhintaan inama xanuun u dhintaan waxa weeyaan Liibiya markaanu joognay ka xanuusta haddii ay TB kugu dhacdo haddii macaan kugu dhaco haddii gastric kugu dhacdo in dawo kaliya meesha naloo keeno kiinka amoxicillin-ta la yiraahdo qalajiya ninkii TB haysa la siinayo kii gastric haysa la siinayo kii ay haysay
dhiikarku la siinayo amoxicillin waxyaabaha dhibaatada la gaarsiinaya dadka dhibaatada la gaarsiinaya horta dhibaato aan soo koobi kara maaha laakiin waxa weeyaan waxa meesha yaalla waxa weeyaan ee la isku dilayaa waa naaqoode kan doonta noo kaxaynaya halkaa la geeyo jirdil in qori dabadii lala dhaco in qoriyana lagu qabto oo gaar loola baxo iyadoo la leeyahay xeradaa kale ayaa lagu geynaya ee doonyahooda aad kaxaynaysaa si annagana naloo hayo kaasina uu diidayo in ay meeshii yimaadaan magafaha aanu lacagtii magafahee ugu badnayd aanu siinay soomaali la shaqayso oo la yidhi aduu bilaash baad magafahan kaga baxaysaa ee noo turjin hoos ahaan ay dhallinyarta soomaalida ay u dilayaan oo magafaha laftiisa la shaqeeya magafuhu arxan xumana muu tusayn laakiin soomaaliga la shaqaynaya ayaa arxan xumo keenaya sidii kii maalintii dhiwo talyaaniga lagu qabtay waxaa jiray annaga oo hool ku jirna meel xoosh ah in naloo keeno wanu oynay maalintaa inamo dhallinyar ah oo soomaali ah oo laftaa dhabarka oo keliya muuqato oo sida xuurta tuur soo yeeshay oo dhallinyar nala sii joogtay ay garteen alla waa hebel iyo waa hebel iyo waa hebel warniyo kii hebel ahaabaa sidaa noo gartay oo magafuhu raashinku noogu soo dhiibaba bannaanka ku daadinayay oo mee salmaan uu dhintay inaan kaa dhintay habeenkiina looga sheekeeyey baanu annagu dhammaan annagoo 470 qof aanu go'aan qaadanay inanka oo sakaraad ah ayuu inankan kale ku yidhi biyo ii keenay inamadana noo sheegay qolkuu jiifay buu ugu galay madaxuu la ka saaray markaasaa shanqadh ugu dambaysay ninkii waa beri ku dhowaadkiiba yar laga maqlay bis sidii buu ku dhintay nasiibkayaga kii sidaa sameeyey baa naloogu keenay meeshii kii annagaa xabsi ka dhex dhigannay meeshii ku xidhnay guddi baanu lahayn guddidii baa ilaalisay liibiyaankii baanu u yeedhnay liibiyaankii baa qaaday jeelkoodii geliyeen waxa weeyaan horta liibiya anigu waxaan joogay 4 bilood iyo badh 4tii bilood iyo badhkii aanu joognay 30 tallaabo socodkayga muu gaadhayn waxa weeyaan bishii ugu dambaysay marka 3 bilood iyo badh aan caadi u joogay bishii ugu dambaysay jilbaha ay xanuunay iyadoo dhallinyartayadii gebigooduba injirtii cunaysay ay jirkii ismiidaamis iyo wax ku dhalisay oo aanu in badan jawi ku dagaalanay maanaan baxayn maanaan safarkaygii gelayn ayaa anuu jilbuhu xanuunayaan andalilaahay masquul u tagay waan qubaystay waan maydhay musqushii markaan suuligii ka soo baxay ayuu ninkiina haystayna lacagta doonta u dhiibanay noo yimid daabul gala buu yidhi saf baan u galnay safar baa tihiin caawa habeennimadii baa nalagu qaaday baabuur baddaa nala geeyey sidii ayaanu badda ku galnay annagoo 5 doonyood ah doontiiba loogu talagalay 110 qof in ay qaado waxa weeyaan doonyaha wax dhisan may hayn aniga iyo inaanu saaxiibaano Cabdifatax Kiise la dhahay markii Ustri bi joogaa ayaa qacmahayga ku xirxiraynay oolina ay nagu socotay karbeesh naqas iyo looxaan la isdhex dhigay oo abwaal lagu jiiday ayaa hayd gebigeeduba ayaanu naftayda saarnay oo jiinkiina xagga dambe lagaga xidhay baddii baanu sidii ku galnay annaga oo 130 qof ah oo 20 qof ay saayid nagu yihiin waanu iska tawakalnay waxa aanu isku soo hadhnay in meel leed nooga muuqda aanu jirin waa annaga iyo badda iyo alle tawakkul ala allah iyo anoo allahu akbar tahaya waxaanu sidanaa GPS toronyo iyo compass toronyaha yaga wana la maqlayaa markaanu halow nidhaa laakiin annagu waxba ma maqlino
oo ma sheegi karno haddaanu sheegno halkaasaanu joognaa ama ma maqli karno sidaa halkaa taagnaad haddiina la idhaa ma maqlayno doon baanu ishelnay aduu 4tii iyo barhkii 5tii oo dhowdhow markay ahayd ayay badda noogu kacday annagoo dhuxul noqonnay oo madoobaanay oo lilma dhammaysanay ayaa ilaahay markab noo soo diray Gracias. No. horta waxa weeyaan markabku diyaarad buu soo diraya diyaaradda noo timid way nagu dul wareegtay dabadeetana diyaaraddu waxoogaa markay nagu dul wareegtay ayay noqotay markabkii 2 laash buu noo soo diray 2dii laash baa iyaga laftoodu nagu dul wareegay doontii gooma ahayd ee balastik ahayn nu saarnayn ayuu ku gujiyey intaa waxay iska hubinayaan inaanu nahay dadee tahriib ah iyo inaanu nahay wax kale aduu wixii baadhitaankoodii wixii markay dhammaysteen bay 2 laash naga noqdeen waxay soo qaadeen bacawaaweyn oo ay alaabi ku jirto koodhadkii badana loo qaybiyey waxa weeyaan markabka markiiba waxaa loogu horsaaray dumarkii iyo carruurtii iyadoo intii la taagnaana u shidaal nagu daatay oo shidaalkii uu waxyeelay gabadh dumar ah oo dhinac kaga daatay oo markiiba diirka ka riday markiiba iyada meel gaar la geeyay markabka qaar lugaha googooyay way jireen sidii baanu 5teedii doonyoobdaanu markabka ku kornay iyadoo markii markabka laftoodina raashin kala aanay nagu badin si aanay kaadina iyo waxaasna aanay noo qaban dhammaan sidii baan lagu badbaadiyay wax naga dhintay ilaahay naguma keenin